haddaad caloolaadkayn way adag tahay in muuqaalkan aad daawatid sababa la xidhiidha argagaxa warbixintan ha ku jirta oo ah mid kaa ilmaysiinaysa waxaase muhiim ah in dhammaanteen gabadhan qoyskeeda aan u raadinno cadaalad waase muuqaal argagax leh taas oo muujinaysa in soomaaliya aysan dhowayn in nabad ay ka dhalato dhammaantiin muuqaalka leegta saara siina sheergareeya rabbi subxaanahu wa tacaalaa dhammaanteen umuurahaan leennahay ilaahay ha inoo sahlo gabadhan qoyskeeda dhibaatada haysata xilligan waa laga yaabaa in adiga ay biri kugu dhacdo ama qof ehelkaaga ah waxaase muhiim ah mar walba in cadaaladdarrada laga hiiliyo taas oo rabbi subxaanahu wa tacaalaa uu jecel yahay gabadhan waa gabar da'yar ah isla markaana hadda ku jirtay da'da qaangaarka nasiib darro weyn ayaa ka dhacday halkan waxaase tan ay muujinaysaa in tacadiyada Soomaaliya ka dhacaya aysan ahayn mid la fiirsan karo isla markaana dadka ay sii eegan karaan hooyo ayaa ilmaynaysa oo da'a aabbo oodi ahna wuxuu la ilmaynayaa tacadiga iyo dhibaatada loo geystay gabadhiisa 11 qofood oo 10 ka mid ah ay ka tirsan yihiin booliska Soomaaliya ayaa gabadhan da'da yar kufsaday kufsi ha haatee laakiin waxay ugu sii dareen kufsiga kadib dil toos ah oo nafta ayay dhaafsiiyeen sheekada xiisaha leh la yaabka lehna waxay tahay in gabadhan ay mishintay 10 askari ee kufsaday dilayna mid ka mid ah haweeney uu qabay waxaa dad badan ay isweydiinayaan sidee ayay ugu heshiiyeen 10 ka mid ah askarta booliska in gabadha yar ay kufsadaan dabadeedna ay dilaan degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose qof walba maskaxdiisa ayay ka weynaanaysaa in 10 ka mid ah askartii booliska ee lagu talagalay in ammaanka shacabka ay sugaan ay kufsadaan gabar da'yar dabadeedna ay dilaan ayaan darrada ka sii daran waxay tahay in 10 askari midkood haweeney uu qabay gabadha ay mishintay isla markaana ay u sheegtay in shaqo fiican ay siinayso si ay u dibirto nolosha aabaheedoo da'a iyo hooyadeedoo da'a hadda waxaa muqdisho ku ilmeynaya meedkiina firinjeer geliyey hooyadii aabihii dhalay gabadhan la dilay waxaase muhiim ah in dhammaanteen cadaalad aan la raadinno qoyskan dhiban oo gabadhooda lagu horkufsaday dabadeedna la dilay oo ilaa iyo hadda cadaalad leh booliska Soomaaliya meesan ka hadlin ilaa xilligan dhibaatada gabadhan loo geystay maxaa ugu wacan sababtu waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ka aamustay afkana ay ka qabsatay kadhiidhinta tacadiga loo geystay gabadhaas oo Allah subxaanahu wa ta'ala uu ka caroonayo in la kufsaday ayaa la dilay waxaase muhiim ah hadda in dhammaanteen aan u kacnaa kadhiidhinta cadaaladda dhammaantiin muuqaalka sheergareeya 4 ka mid ah askartii kufsiga geysatay ayaa xiran waxaase weli baxsad ah 6 kale ayadoo muhiim ay tahay in dhammaantood la soo qabto kuwaasi waxay mudan yihiin in tiirka la geeyo dabadeedna la toogto waxa ay sameeyeen waa wax ka baxsan xuquuqul insaanka iyo weliba shareecada islaamka labadaba aad ayaad u ilmeynaysaa haddaad daawatid hooyada iyo aabbaha gabadha dhalay oo ilmeynaya ilmadana ay ka qubanayso bal ila daawo oo wax u naxariis hadday kugu jirto arrintan ka dhiidhi oo aan u kacno in qoyskan cadaalad ay helaan junubka lagu haaye waa baaray mirag iyo kufsi labada waddo la isu furay ayaa warbixin laygu siiyey istaanba waxaan ka qaaday iskaan kufsi wadareed isu furay labadii makaan iyo mirag ayaa laygaga sheegay ma mutaysan anigu waa soo dhibtooday in dhib laygu sii daraahay waa ayaan darraday isbitaalo yaallaa firijeerow ku jiraa haddii ilaahay yidhaahdo maalinta uun ilaahay qoraa la soo bixi doonaa waxaan doonayaa in intaanan soo bixin arrinteeda xaqayga layga siiyo dulminayaashaas oo nafteedii qaaliga ahayd dulmi ku waxyeeleeyey anigu arrinteeda ilaahay baa kuwii kurbeeyey allah kurbeeyey xaqaygaan doonayaa
kuwii kurbeeyey allah kurbeeye xaqayga halaygaga soo dhacsho intii hawshaas iskalena adduunya waa maalin aakhira la tegi doonaa qurbada iyo soo dareemi karteen inta ummad nabi maxamed oo shahaadato waa dareemi karteen hooyo xanuunka ay leedahay gabadheed u baxsoo baxays oo xubno dawladda kamid ah oo saas iga yeelay oo askar ah oo booliiska amniga sugi lahayd kamid ah leeyahay asaas gabadheed iga galay war jirkeed maxaa sheegaysaa si islaamnimo aan loogu dhaqminaa gabadheeda loogu dhaqmay labadeeda waxaan ku dhaasay labadeeda makaana la isku furay eejada ku taalo waxaan ku rafaadka adduunyada ay u galeen gabadhan si loo hurdi karo ma ahan oo islaamnimada ku jirta ma ahan waxaa la yiri inay ay xirantahay 6 qofood la deeyaa lagu sheegay 5 qofood hadda ay xiran tahay waxaan ka codsanayaa meydkayga ma duugay iyadoo la soo gudbay 5 qofood oo xiran la soo gudbin gabadheeda inaan duugayn kuwa maqan oo la daayo masaqmaasuq lagu deeyana in la soo qabto saas ninkii maanta ka jiiftana birri inay ku dhacayso ogaanteeda halahaado haddii ay dadkaasi ay cadaalad jirto waa rag ciidan ah ilaa iyo 12 qofood lagu sheegay mid kamid ay tahay qof dumar oo inanteena shirqooshay ayadoo dumar ah ay garaweysay qiimaha ay dumarnimadu ay leedahay ay garan weysay maxaa la yiraahdaa gabadhaas yariska ah ee ardunka ah ee ubaxa soo baxaya ah ay indhaha ka riday hooyadii aabihii dhalay ay maxaa la yiraahdaa wali ay frinjeer ay ugu jirto annaga gabadheena marnaba ma aaseen frinjeerkaas ay noogu jire jirkeeduna isma bedeli doono wayna noogu jiri doontaa talaagadaas ay noogu jiraysaa wayna noogu jiri doontaa mana ahan